وحزبي ugu horeeyay oo burburkii kadib xafiis ka daafurta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle magaciisuna waa SYBB oo loo soo gaabiyo xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana hogaamiya xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka maamulka Hirshabelle munaasabad maanta Jowhar uu ku qabtay ayaa waxa kala soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Jowhar iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle marti sharaftii munaasabada lagu casuubay munaasabada xariga loogu jiray xafiiska xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxay ammaan ay u jeediyeen wasiir Khayre iyo waliba xisbiga uu hogaamiyo waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin xafiiska maanta xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed uu ka daafurtay magaalada Jowhar dhalinyartii ugu xiran tahay waxa jiro dhalinyaro jaamacad ka soo baxay بعد السلام waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo gudoomiyaha xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee la soo gaabiyo SYBB marka hadaan dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhalinyarada hadaan Hirshabelle waa in aan ka qayb qaadanaa بعد السلام xisbiga maanta ee dhalinyarada lagu magacaabay qof ee codkeeda horta Ilaahay aan gaarsiiyo waa ijaabina xaqiisa jirto mid kale waa soo dhaweeyay dhalinyarada بعد السلام waxaan nasiib wanaag maanta inaan ka soo qayb galno xisbiga ugu horeeyay oo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada looga yeeray oo laga sameeyay degmadan Jowhar gudoomiye uu yahay nin qaali ah walaalkayna oo la yiraahdo wasiir Khayre ur dhalinyaro laga furaayo Hirshabelle xisbi cusub oo dhalinyarada Hirshabelle laga furaayo qaasatan degmada Jowhar waa soo dhaweynaynaa Saalax Muude duqa magaalada Jowhar oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada hadii ay iskaashaan ay waxyaabo badan ay bedeli karaan isagoona sheegay in maamulka degmada Jowhar uu soo dhaweynayo xisbigan maanta Jowhar ka daafurtay xafiiska cusub xisbiga ucud xisbiga hebel xisbiga kulmiya Soomaaliland ayaan ku maqlaynay saakay Jowhar xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna hogaamiyaha xisbigan ayaa ka hadlay muhiimadda loo aasaasay xisbigan waxa uu sidoo kale dowladda dhexe ee dalka uu ka dalbaday inay sameyso maxkamad dastuuri ah waxaan rabaa inaan taariikhda xisbiga iyo xiliyada la soo aasaasay aan wax idin kaga sheego iyo marxaladaha uu soo maray horta xisbiga magaciisa waxa la Somali Youth Political Party SYBB luqadeena waxa lagu dhahaa xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed magaca uu wato waa xisbi dhalinyaro wuxuu xambaarsan yahay wanaagii iyo awoodii dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay xisbigan waxa kadib in hal farin aan diro farintaasna aan diraayo waxay tahay waxaan ognahay bishii la soo dhaafay afarteeda waxa xukuumadda Soomaaliya ee ansixisay sharciga doorashooyinka qaranka wuxuuna hor yaalaa baarlamaanka maadaama sharciga doorashooyinka qaranka uu hadda baarlamaanka hor yaalo dalkana waqtiga doorashada qof iyo cod loogu talagalay ay ka dhimantaa wax ka yar 2 sano dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo wali uu ku jiro dib u eegis aan la dhameystirin sharcigaasna waxay ahayd oo baarlamaanka hor yaalo waxaan codsanaynaa xukuumadda federaalka waxaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka codsan lahayn hadaanan xisbiyada dalka si dalkan doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo oo ugu dhacdo annagana aan kalsooni ugu qabno ummadda Soomaaliyeed ay kalsooni ugu qabaan waqti kororsiimana aysan u jirin waa in la dhisaa maxkamadda dastuuriga haduusan jirin maxkamadda dastuuriga cid doorasho qof iyo cod ah gali karta ma lahan waxaan halkaas ka imaanayso tuhun ah inuu jiri karo waqti kororsiimo ee xukuumadda isku diyaarinayso si taas looga baaqsado xisbiyada dalka ka jirana ay u helaan campaign-kooda iyo xulxulashadooda waqti hore loo bilaabo dastuurkan jamhuuriyadda waa in sanadkan lagu dhameystiraa sanadkan gudihiisana la sameeyaa maxkamadda dastuuriga oo sheegi kartay aniga hadaan tartamo ina codka aan ku soo baxay oo xalaal yahay iyo ina cod xaraan aan ku soo baxay maxkamadii sheegaleed ma dhisno waa in sharciyadeedii iyo habraaci loo mar lahaa maxkamadda dastuurka sida u dhaqsiyaha badan lagu sameeyaa
sida ugu dhaqsiya badan xukuumadda ay usoo gudbisaa baarlamaanka haddaan la helin maxkamadaas waxaan leenahay dalkan doorasho qof iyo cod ah uma socdo tuhun badan ayaa jiro taasna ummadda Soomaaliyeed ma aqbali doonto in waqti kororsiimo dib dambana loogu celiyo dalkan ma aqbalayno waa in qof iyo cod ay noqoto qof walbana oo codkiisa xalaasha uu ku dhiibto muwaadinka Soomaaliyeed uu arko inuu hogaamin karo waa xisbigii ugu horeeyay ee Jowhar ka daahfurtay xafiis iyadoona shacabka reer Jowhar maanta ay soo dhaweeyeen xafiiska cusub ee xisbiga siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed uu maanta ka daahfurtay Cabdiraxmaan Wadani TV ka Kalsan Jowhar